com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbo aad inaga maqlaysaan waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 1 bisha 7 sanada 2021 Afrikada bari saacaduna waa 2 duhurnimo. waxyaabaha aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah munaasabado lagu maamuusayo xuska 1 Luulyo oo ka socota Muqdisho iyo gobollo kale oo dalka ah. ururka xuquuqul insaanka Djibouti oo laamaha ammaanka dalkaasi ku eedeeyay in ay geystaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha. sida ma yeelaane muddo ayay haystaan 10 cishay haystaan bil bay haystaan 20 cishay haystaan iyagoon haba yarata wax maxkamada geyn weliba tacdiid ugu badan xaqooda waxay ka dhacaan meesha laga magacaad oo kala madaxweynaha Shiinaha oo awoodaha shisheeye uga digay in ay faraha la soo galaan arrimaha dalkiisa. waxa kale oo aad barnaamijka ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo sheegay in sababta ay ciidamada uga baxeen caasimadda Tigray ay tahay sabab la xiriirta in kooxda TPLF aysan wadanka halis ku ahayn balse ay jiraan arrimo kale oo wadanku mudnaanta hore siinayo. iyo dabcan wararkii ciyaaraha barnaamijka waxa isku soo dibiriday Samiira Cabdilaahi Jaamac anigoo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee duhur wanaagsan dhageystayaal. waxaase intaasoo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da Saciid Xasan Anteeno ayaa u diyaara. Saciid mahadsanid Fartuun. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa uga digay quwadaha shisheeye inay faragelin ku sameeyaan arrimaha gudaha dalkiisa haddii kalena ay wajihi doonaan cawaaqib xumo. wuxuu ka jeediyey khudbad adag dabaaldega sanad guurada boqolaad ee xisbiga haya talada dalkaasi. Mr. Xi ayaa sidoo kale sheegay in Beijing aanay marnaba ogolaan doonin tala soo jeedino fara badan oo aan macno lahayn taasoo loo fasirin karay inuu duurxulkaasi uu toos ugu socdo dowladda Maraykanka. dowladda Indonesia ayaa ku soo rogtay xanibaad dalkaasi taasoo looga gol leeyahay la dagaalanka cudurka COVID-19 sabtida soo socota. cudurka ayaa ka soo laba kacleeyay gudaha dalkani ku yaala koonfur bari qaaradda Asia kaasi oo si weyn u saameeyay coronavirus. sare u kacan u dambeeyay ee cudurka ayaa loo aaneynayaa inuu yahay nooca loo yaqaan Delta taasoo ku haya cadaadis weyn isbitaalada Indonesia oo buux dhaafay. maanta oo khamiis ah ayay dowladda Bangladesh ku soo rogtay dalkaasi xanibaad soconaysa ilaa iyo 7. ciidamada ayaa gaaf wareegaya dhabooyinka waaweyn iyagoo ganaaxaya ama xiraya qof waliba oo ka soo baxay gurigiisa cudurdaar la'aan oo macquul ah. dalka Turkiga ayaa si rasmi ah uga baxay heshiiska caalamiga kaasoo ka hortegayay tacadiyada ka dhanka ah dumarka oo loo yaqaano mucaahadadii Istanbul. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in kani dhaawacayo qaab dhismeedka qoyska isagoo aaminsan in heshiiskani huwan yahay waxyaabo badan oo la isku hoosaasinayo. madaxweyne Putin oo ah madaxweynaha Ruushka ayaa shaaciyay sharci ku waajibinaya shirkadaha waaweyn ee internetka inay xarumo ka furtaan dalka Ruushka gudihiisa. tallaabadani ayaa looga gol leeyahay in lagaga hortago laguna xisaabiyo mustaqbalka haddii ay jebiyaan sharciyada u degan Ruushka shirkadaha Google iyo Facebook. ugu dambeyn ciyaaryahanka reer Argentina ee Lionel Messi ayaa waxaa dhammaaday heshiiskii uu kula jiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona isagoo haatan wixii ka dambeeya xor u ah in ciddii uu doono uu heshiis la galo. waxaa jira warar sheegaya inuu wadahadal kula jiro koox kale oo ka dhisan isla dalka Spain. intaas waxaa inagu dhan warkii aan dib idinku celiyo qeybaha kale ee barnaamijka iyo Fartuun. aad buu mahadsan yahay Saciid Xasan Anteena ayuu kaasi ahaa wararka caalamka ee BBC-da inala socodsiinayay. dhageystayaal haatan u diyaar garooba qeybaha kale ee barnaamijka. waa hagaag duhur wanaagsan mar kale waxaa inoo soo socda munaasabadaha lagu xusayo xuska 1 Luulyo oo ka socota Muqdisho iyo waliba sidoo kale gobolada dalka balse waxaanu ka hormari doonaa warbixin ay soo saareen ururka xuquuqul insaanka Djibouti ayaa lagu eedeeyay ciidamada ammaanka iyo booliiska dalkaasi in ay geystaan xadgudubyo ka dhana aadanaha. warbixinta ayaa lagu sheegay in ciidamadan ay dadka ay u soo qabqabtaan dambiyada ay galaan aysan marsiinin sharciga saxda ah. ururka ayaana ku baaqay ama baaq u diray hay-adaha garsoorka dalkaasi. gudoomiye ku-xigeenka ururka Mahdi Mustamir Suge oo aan qadka telefoonka ku wareystay ayaa marka hore weydiiyey waxa ay tahay eedeymaha ay u jeedinayaan ciidamada.
ciidantan soo jeedinno ciidamada ammaanka Djibouti lama soo koobi karo inooyinkan dambe ciidamada amnigu gaar ahaan jandarmeriga iyo booliisku waxay caadaysteen inay xaquuqda aadamaha ay ku tuntaan si bayr ugu tuntaan oo tusaale haddii aynu soo qaadano waddanku sharcigu leeyahay sharcigu wuxuu ogol yahay ama dastuurku ogol yahay qofka 8 saac wax ka badan inaan lahayn karin 8 saac ka bacdi qofka xorriyadiisa loo soo celiyo ama maxkamad la geeyo sida ama yeelaane muddo ayay haystaan 10 cishay haystaan bil bay haystaan 20 cishay haystaan iyagoon haba yaraatay wax maxkamada geyn weliba tacdiida ugu badan xaqooda aadamaha waxay ka dhacaan meesha laga magacaad oo ku kala duwan magaalada haddii aan tusaale ku soo qaado sanadkii inka naga bishii abril waxaan soo bandhignay warbixin sanadeedkii 2020 warbixin sanadeedka ay ka muuqdeen tacdiidaha farqada la soo saaray tacdiidaha waxa kaloo kamid ah walaalo waa kamid ah oo dadka luuda oo xataa waxa kamid ah dadkaasi booliska dadka ay u qoraan inta badan ay ku hayaan taas waxa ka sii daran dilal sharci darro ayay geystaan ciidamada booliska ayay geystaan weliba gaar ahaan boolisku 2 sano ka hor yar oo 19 jir oo la yidhaahdo bishiladii cumar ayay dil sharci darro u geysteen ilaa iminka askariga yarkaa jiray wax maxkamada lama soo taagin sanadkan aan ku jirnay 2021 magaalada Calasariix oo jirta caasimada 9 kilomitir toogasha ayaa ka dhacay gaar ahaan bishii March kaasoo nin muwaadin rayidku ku nafaxay waxa kaloo ka sii horeysay bishii January nin waardiye ah ayay si xun ugu dhaawaceen ninkaasoo ilaa imika dhaawacay la jiifa marka walaaloy lama soo koobi waa tahay dalkan ka dhaca walaaloy in yarikaadi hadduu qofku ra'yigiisa ku cabiro baraha bulshada isla markaaba guryaha loogu daataa oo xabsiga ayaa loo taxaabaa sida imika dhacday maxaan ku dhahay dhowr muwaadiniin Djibouti oo dhalinyaro ku dhacday maxaad cadayna oo aad u haysaa eedeymahan aad u jeedinayso ciidamada ammaanka iyo kuwa booliiska Djibouti walaaloy cadayta baa ku soo bandhignay oo qofka magaciisa saddex baan ku sheegaya waayo anagu waxaan sheegaynaa inta badan ururada warbixinada aan qorro iyo warbixin sanadeedkaan qorro iyo war-saxaafadeedka beesha caalamkaan u diraa ururada caalamkaan u diraa inta badan 100% wax been waan iska ilaalinaa way kalsoonida lagu qabo ayaa hadii kala dhaawacaysa marka urur ahaan waa waxaan ka fiirsan oo baaritaan ku sameyn waa waxa iska sheegayno oo been haba yaraatay mid dadkan aad leedihiin waa la qabqabtaa oo waa la jirdilaa ma ogaateen oo ma xaqiijiseen in iyagu qudhoodu ay dambiilayaal yihiin walaaloy waa su'aal fiican weeyaan qofka marka la qabto muwaadinka dambiile ma inta waa eedeysane marka sharciga la mariyo maxkamad la geeyo la xukumo mud dambiile noqonaya dadkan aan ku sheegayo waa dad fara badan oo aan tobanaan qof ah sawiradoodii xitaa soo bandhignay waa dad aan la kulannay oo aan la sheekaysanay goobtii laga qabtay goobtii lagu xidhay marka dadka walaaloy sidaas anaga wax ku soo cadayna ururahan mala wadaagteen arrintan laamaha dowladda ee arrimahan ku shaqada leh su'aal fiican weeyaan walaaloy sanadii naga tagtay wasaaradda cadaaladda warqad baan qoray warqadaas waan ka inaan soo indhaindheeno xabsiga dhexe Djibouti iyo xarumaha dadka lagu xidhay booliska ay ku xidhaan warqadii way ka soo jawaabi waayeen wasaaradda cadaaladdu warqad labaad baan u qoray oo xasuusina warqadii labaad way ka soo jawaabi waayeen muddo 2 bilood aan si shakhsiyan anigu aan daba socday oo aan ka bal xabsiga dhexe tacdiida ka dhaca wax la aqbali kara ma walaaloy waxa kaloo halka ku xidhan haddaan kuu sheego wax ka daawateen baraha bulshada oo dowliyaha waa Yusuf Ali ku jiro marka xukuumadda si caddeeyo iyo nagu gacan salday inaan soo indhaydhan xabsigaas waayo waxay ka baqaysaa inaan banaanka soo dhigno ceebta meeshaasi taala marka aad aragteen arrimahan jira maxaa talaabaha oo aad qaadeen oo aad uga hortegaysaan arrintan aad sheegayso waxa weeye anagu urur ahaan warbixino iyo war-saxaafadeed iyo warbixin sanadeed ayaan ka qoraa beesha caalamkana waan la wadaagnaa laakiin waxa ka qabasho markay noqoto waddanku garsoor buu leeyahay sharci buu leeyahay muwaadiniintu haddii muwaadiniinta reer Djibouti xaquuqda lagu tacadiyo iyaga u tala inay maxkamad dacwad geystaan kaasi waxa uu ahaa Mahdi Mustamir Suge oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka xuquuqul insaanka Djibouti oo qadka telefoonka igu waramayay dhegeystayaal ciidamada booliiska iyo kuwa jandarmeri ee dalkaasi Djibouti ayaan aan ka jawaabin telefoonka BBC-da balse aan xiriir la sameynay haatanna Muqdisho haddii aynu aadno xaflado iyo munaasabado lagu maamuusayo xuska 1 Luulyo oo ku beegan 60 guuridii kasoo wareegtay markii gobolada koonfureed ay xornimada qaateen 1960 iyo israaci gobolada waqooyi iyo koonfur ayaa ka socota Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka beelasheegow ayaa warkani xuska ku saabsan Muqdisho inooga soo dirtay
xalay saqdhexay ilaa maanta waxaa socday dabaaldegyo lagu xuseeyey 1 luulyo ee xorriyadda waxaana ugu dambeysay xaflad maanta duhurkii xarunta tiyaatarka ee magaalada muqdisho lagu qabtay xafladan waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble xubno ka socday labada gole ee baarlamaanka ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale xaflada ka hor madaxweyne farmaajo ayaa ubax dhigay taalada Israel iyo kuwo kale xalayna madaxweyne farmaajo ayaa calan saaray madaxtooyada qaranka si loo maamuuso maalinta xorriyadda iyo midnimada ee 1 luulyo oo ku aadan sanad guuradii 61aad ee kasoo wareegatay xornimada gobolada koonfureed iyo midowga labada gobol madaxweynaha ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay maalintan wuxuuna sheegay inay tahay maalin qiimo badan oo ku suntan gobonimo midnimo iyo dowladnimo dadka Soomaaliyeed ee maal iyo nafba u horay hanashada qaranka xaflado iyo munaasabado kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho sidoo kalena dabaaldega gobolada xataa uu ka socday gaalkacyo beledweyne iyo gobolka baay ayaa sidoo kale xusas iyo munaasabado ay madaxda maamuladaasi kasoo qayb galeen lagu qabtay qaar badan oo ka mid ah madaxda dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleedba waxay hambalyo u direen shacabka Soomaaliyeed oo ay ku bogaadiyeen sida qiimaha badan ay uga qayb qaadanayaan xuska toddobaadka xorriyadda dhanka amniga haddii aan fiiriyo waxa guud ahaan si aad ah loo adkeeyay amniga goobaha ay ka socdeen xafladaha lagu weyneynayo xuska 1 luulyo ciidamada dowladda ayaa amar lagu siiyay in aanay rasaas ridi karin inta lagu guda jiro xuska toddobaadka xorriyadda waxaana laga mamnuucay in shacabka dhexdiisa ay ku ridaan rasaas fara badan oo argagax gelin karta dadka dabaaldegaya waxaana jiray warar sheegaya in rasaas loo riday dabaaldegii 26 Juun ay sababtay dhimasho iyo dhaawac bela sheego BBC Muqdisho aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga magaalada muqdisho beela oo warbixintaasi halkaasi inooga soo dirtay qodobkaasi waxaa aragtidiisa kasoo dhiibtay cabdisalaam ka jooje oo galdogoba jooga waxa uu leeyahay munaasabada xuska 1 luulyo ee muqdisho iyo gobolada kale ka socota runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana soomaalida ugu hambalyeynaya maalmahan farxadda leh ay ku jiraan waxaana muuqata in dib ay usoo udgeyso buu yiri dowladnimadii Soomaaliya aad buu u mahadsan yahay dhegeystahaasi halkaasi inoogu soo gudbiyey aragtidiisa halkaad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta Soomaaliga ee BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa uga digaya quwadaha shisheeye in ay faragelin ku sameeyaan arrimaha gudaha dalkiisa haddii kalena ay wajihi doonaan cawaaqib xumo waxa uu ka jeediyey khudbad adag dabaaldega sanad guurada 100aad ee xisbiga shuuciga ee haya talada dalkaasi waxaa warbixintaasi noo haya Saciid Xasan Anteeno mudane Xi ayaa sidoo kale sheegay inaanu ogolaan doonin hadal aan macno lahayn taas loo fasirin karay inuu la jeedo Mareykanka tani ayaa timid ka gadaal markii Shiinaha uu wajahay cambaareen la xiriirta xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha taas oo haatan ka socota Hong Kong xiriir ka dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa sii xumaaday muddooyinkii u dambeeyay kuwaas oo ay saldhig u ahaayeen ganacsiga isbasaasidda iyo cudurka COVID-19 sidoo kale arrinta jasiiradda Taiwan waxay qayb ka tahay dhiilada ka dhex aloosan labadan dal Taiwan ayaa soo aragtay inay tahay dal maamul furfuran leh madax halka caasimada Beijing looga arko jasiirad yar oo gooni goosad ah Mareykanka oo ku dhaqmaya sharcigiisa ayaa ku andacoonaya inuu Taiwan u fidin doono kaalmo iyaduna tahay dal madax bannaan oo iska difaaci karta haddii Shiinaha ku soo gardaroodo oo uu isticmaalo awood si uu soo ceshado khamiistii madaxweynaha Shiinaha Xi ayaa carabka ku adkeeyay in aragtida ah in Shiinuhu yahay hal dal ay tahay mid aan la loodin karin marka lagu daro jasiiradda Taiwan madaxweynaha ayaa tilmaamay in aanu qofna si yar u qiimeyn karin awoodda ay dadka Shiinaha u leeyihiin daafaca madax banaanida iyo wadajirka dalkooda xuska 100 guurada ka soo wareegtay aasaaska xisbiga talada dalka Shiinaha haya ayaa meelo kala duwan lagu qabtay aroortii hore ee maanta oo khamiis ah iyadoo ay qayb ka ahayeen ciidanka militariga diyaarado dagaal ee ciidamo gaada ciyaar ku sameeyay fagaaraha Tiananmen iyo heeso wadani ah dad la soo baaray ayaa ka soo qayb galay xafladda lagu qabtay fagaaraha kuwaas oo intooda badan aan xirnayn waji xirka dalkani ayaa waxay warbaahinta ku dhex baahiyeen toddobaadyadii u dambeeyay nooc taariikh ah taas oo uu gadaal ka riixayo xisbiga talada haya Hong Kong ayaa sidoo kale xusaysa munaasabadii dib loogu wareejiyay dalweynaha Shiinaha ugu dambeyn Xi ayaa ka digay inaan qofna ku soo dhiiran doonin inuu arrimaha gudaha dalkiisa soo farageliyo maadaama uu yahay dalka dunida ugu dadka badan taasna ay raacsan tahay cudurda ugu weyn ee dunida aad buu mahadsan yahay Saciid Xasan Anteena ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay haatanna
ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in sababta ay ciidamada difaaca dalka ay uga baxeen caasimada gobolka Tigray ee Maqale ay tahay sabab la xiriirta in kooxda fallaagada ee TPLF aysan wadanka halis ku ahayn balse ay jiraan arrimo kale oo wadanku mudnaanta hore siinayo. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya maalmo kadib markii ay ciidamada militariga federaalka Itoobiya ay isaga baxeen aaga dagaal ee gobolka Tigray halka jabhadda TPLF-na ay sheegtay in ay gacanta ku hayaan Maqale. Haddaba maxaa lagu fasiran karaa hadalka ra-iisul wasaaraha? Waxaana su-aashaas iyo kuwo kaleba hordhigay Maxamuud Sayid Macalin oo ka faalooda arrimaha Itoobiya. Qadka telefoonka ayuuna iigu waramay. guud ahaan ugu horreyn markaan hadalkiisa eegno Abiy Ahmed wuxuu kaga hadlay ilaa 6 arrimood oo muhiim ah. ugu horreyn wuxuu sheegay in meesha magaalada Maqale aynan muhiimad ama istaraatiijiyad saaf ayna hadda u ahayn oo khatartiisa yaallay iyo hubkii yaallay iyo ciidamadii yaallay dhammaan guud ahaan ay kala baxeen isla markaana ayna ka duwanayn magaalooyinka kale ee Tigrayga uga midka. Marka wuxuu sheegay halis hadda ka hor jirtay in la soo afmeeray hadda halista ugu weyn ee dalka haysatana ay tahay arrinta biyo-xidheenka Abay oo u baahan in loo diyaar garoobo. Marka taasi waa mid. waxaa kaloo Abiy Ahmed ka hadlay oo meeshiisa uu ku sheegay in arrimaha axmaarada kale ka hadlay sababtoo ah dadka axmaarada inta badan waxay lahaayeen ama qowmiyadda axmaarada waxay soo jeedinayeen in ciidanka bixitaankiisa ay aad u dhaliilayeen arrintaa ugu beeniyo wuxuu yidhi ciidanka guuldarrana soo gaadhay ogolaamaanaan bixin si yaroo kooban xilligii horeba ku qabsanay. Marka yacni arrimahaasna wuxuu yidhi waa arrimo miidiyaha sida gaara loogu faafinayo. arrinta kale ugu muhiimsan ee muhiimka uu ka hadlay waxay ahayd wuxuu sheegay in cadaadis gudaha ah uu soo food saaray ciidanka qaranka ee dalka Itoobiya. wuxuuna sheegay in shacabka Tigrayga ah ay u halgamayeen ciidanka cadaadis kala kulmeen isagoo xusay in shacabka meelaha qaar biyaha biyo noqoto hadday noqoto shacabka meelaha qaar la shirqoolo oo inta loo yeero migrada si kale loo sii bedelo marka dadku iyagoo badbaadinayo ilaalinaya ay dadku sii bedelaan kiniisadaha iyo qaysaskii dadkii guud ahaan shacabkii ayuu sheegay oo yidhi waxay nagu noqdeen caqabad ay nagu noqdeen. Ma la dhihi karaa waa uu iskhilaafaya hadalka ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo kan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda? waa runtaa oo wasaaradda arrimaha dibadda way hadashay. waxaa kaloo hadlay makalakaaga ciidanka qaranka mid kamid ah u hadlay 4 qof oo kala duwan. waxaa kaloo hadlay madaxa ku-meel gaarka ee dowladda Tigrayga loo dhisay hadlay. marka 4 dowladood si kala duwan bay uga hadleen arrinta Tigrayga. mar waxay sheegeen in beeraleyda loo danaynayo oo hore loo xuseen. mar kale waxay sheegeen in ciidamadii magaranaysa ay cadaadis gudaha soo food saaray. marka hadallo badan oo ishardinaya ayaa meesha ka soo baxaya. laakiin arrinta ugu xasaasisan waxay ahayd ee ugu muhiimsan rabnaan ka hadlo waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo ciidanka makalakaaga markay warsaxaafeed goosintaas jeediyay waxay sheegeen in hadda kadib mas'uuliyad ayna ka saarnayn deegaanka Tigrayga oo wixii hadda kadib ka dhaca iyo shaqadiisoo dhan ba ay u taalo ayna wax dowladda dhexe quseeyahayn. sababtayna waa deegaan dalka ka mid ah. dalku waa dad madax bannaan deegaan hoos tagay iyo dad hoos tagay dowladdiisii dhexe hadday tiraahdo hadda kadib shacabka iyo dadkiisii iyo deegaanka wax naga quseeya markiisa arrintaa nafteeda waa arrin culus oo saami karayso. waxayna inta badan dadka siyaasadda dalka u dhunduleela ay hadal hayaan ugu hadalaa inta badan go-aankaas wasaaradda arrimaha dibadda kasoo yeeray oo ah inaan hadda kadib wax dowladda dhexe shacabka iyo dadka halkaa deganayaan ila xiriirin adeegyadii baa layrkii korontadii iyo badan baa go-ay. marka waxa weeyaan waxaa la weydiinayaa oo dadku leeyihiin Tigrayga waxaa loo riixayaa dhankaas iyo inay gooni isku taagaan. maxaa keenaya in hadallada mas-uuliyiintaas wada hadlay uu ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo inay iskhilaafaan oo hal meel ay u wada socon waayaan? waxaad horta niyo markaad yaro fiirsato khudbadda waxaad moodaysaa inay wada socosho la-aan ay jirto oo lama wada socdo. waxaad yaro moodaa xoogaa hadalladoodi inayna wada soconin. marka anu markaan yaro eegay waxaa jira cadaadis fara badan oo dalka gudaha iyo dibadda iyo beesha caalamka iyo caqabado badan oo dalka hadda halkayna nagu soo koobi karaynin baa jira oo u baahan inaan barnaamijyo kale ku qaadano. marka caqabado badan baa jira. caqabadahaas waxay keeneen sida Abiy shalay lafteeda ka hadlayay beesha caalamka dhaqaalihii lagu cadaadiyo in cadaadis gudaha dalka gudihiisa soo food saaro. therefore marka waxaa yimid inay isakrin waayaan maamulkuna hadduuna isakrin oo la wada soconin waxay noqonaysaa in Afrika uu soo dhigo hawsha. kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sayid Macalin oo qadka telefoonka iigu waramayay. haatan ciyaari haddii aynu eegno waxaa si rasmi ah u dhammaaday heshiiska ciyaaryahanka Lionel Messi uu kula jiray kooxda Barcelona kaasoo ku ekaa 30 June. sidaas darteed haatan ayaa waxa uusan ka tirsaneen koox kubadda ciyaarta si bilaash ah ayuuna wuxuu ugu biiri karaa kooxda uu doono. dhageystayaal haatanna baafintii
baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha b b c da magaalada nairobi idinkaga soo tebinaya anigoo ah faysal bishaar aligo iyo caashe saciid xasan caashe. mahadsanid aligo. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay cabdiraxmaan yuusuf cabdi oo jooga baardheere. waxa uu baafinayaa ismaaciil yuusuf cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan sacuudiga 2012. haddaba haddii uuna maqlaya ismaaciil yuusuf amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiraxmaan yuusuf iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nimca cabdiraxmaan cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa yuusuf cabdiraxmaan cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka masar sanadii 2006. haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf cabdiraxmaan cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey nimca cabdiraxmaan cali iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. sundus cumar siciid oo joogta baardheere waxay baafinaysaa luul cali siciid waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan zambiya 2002. haddaba haddii ayna maqlayso luul cali siciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sundus cumar saciid ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. mustaf aadan cilmi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa xaawo aadan cilmi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka faransiiska sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso xaawo aadan cilmi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo mustaf aadan cilmi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. najmo cabdiqaadir cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa aadan suldaan fu'aad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jarmalka 2006. haddaba haddii uuna maqlaya aadan suldaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo najmo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. hindi yuusuf mahad oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cusmaan yuusuf mahad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka maraykanka sanadii 2005. haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan yuusuf mahad amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey hindi yuusuf mahad iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. faadimo salaad cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa salaad cabdi yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mozambique 2014. haddaba haddii uuna maqlayo salaad cabdi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadimo salaad iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ama taleefonka lambarkiisu uu yahay 2526 muune axmed salaad oo joogta baardheere waxay baafinaysaa xaliimo salaad cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka norway sanadii 2014. haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo salaad cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyey muune axmed salaad iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. salaado cali cabdi oo joogto baardheere waxay baafinaysaa mahad cali cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan kanada 2004. haddaba haddii uuna maqlayo mahad cali cabdi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo salaado cali cabdi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ama taleefonka lambarkiisu uu yahay 2526 sagal mataan asad oo joogta baardheere waxay baafinaysaa dadka kale ah samiiro mataan asad iyo xaliimo mataan asad waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka holland sanadii 2003. haddaba haddii ayna maqlayaan samiiro mataan asad iyo xaliimo mataan asad amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda ha la gaarsiiyey sagal mataan asad iyadoo wix waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. asli maxamed faarax oo joogto baardheere waxay baafinaysaa cusmaan maxamed faarax waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2016. haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan maxamed faarax amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo asli maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere. maslax yuusuf cabdi oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa ibraahim yuusuf cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2002. haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim yuusuf cabdi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiye maslax yuusuf cabdi iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 2526 axmed saciid asad oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa fartuun saciid asad waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska. haddaba haddii ayna maqlayso fartuun saciid amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo axmed saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ifrax maxamed cali oo joogto baardheere waxay baafinaysaa maxamuud cali yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 2013. haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud cali yuusuf amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo ifrax maxamuud cali
iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cumar guhaad samatar oo jooga baardheere waxa uu baafinayaa guhaad samatar cilmi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan sweden 2008 haddaba haddii uuna maqlayo guhaad samatar amabay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cumar guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 sundus cabdi shukri cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa aamino cabdi shukri cali waxaa ugu wardambeysay sanadii 2017 haddaba haddii ayna maqlayso aamino cabdi shukri cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyey sundus cabdi shukri cali iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nasra cabdi salaad oo joogto baardheere waxay baafinaysaa faizo cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2005 haddaba haddii ayna maqlayso faizo cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nasra cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 xamdi xuseen guhaad oo joogta baardheere waxay baafinaysaa samiiro guhaad aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka sweden sanadii 2014 haddaba haddii ayna maqlayso samiiro guhaad aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi xuseen guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. sacdiyo mahdi samatar oo joogto baardheere waxay baafinaysaa ifraax mahdi samatar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka denmark haddaba haddii ayna maqlayso ifraax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sacdiyo mahdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. cabdiye cumar salaad oo joogto baardheere waxay baafinaysaa muuse salaad cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka angola sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo muuse salaad cabdulaahi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdiye cumar salaad iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 252646 hani cabdi aadan oo joogto baardheere waxay baafinaysaa kuusow cabdi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan etoobiya 2007 haddaba haddii uuna maqlayo kuusow cabdi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hani cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 2526 hani yuusuf cabdille oo joogto baardheere waxay baafinaysaa maxamed yuusuf cabdille waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kenya sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed yuusuf cabdille amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey hani yuusuf cabdille iyadoo wix waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama uu telefoonka nambarkiisu yahay 25265448 qadro maxamuud jaamac oo joogto baardheere waxay baafinaysaa sucaad maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan maraykanka 2016 haddaba haddii ayna maqlayso sucaad maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo khadro maxamuud jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. canab maxamed aadan oo joogto doolow waxay baafinaysaa nasre maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka uganda sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlaysa nasre maxamed aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo canab maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. hindi abuukar axmed oo joogto baardheere waxay baafinaysaa farxiyo asad cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jarmalka 2005 haddaba haddii ayna maqlayso farxiyo asad amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hindi abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. muxidiin cabdi cismaan oo jooga doolow waxa uu baafinayaa maxamed cali cismaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka uganda sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo maxamuud cali cismaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey muxidiin cali cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. nasro nuux ibraahim oo joogto baardheere waxay baafinaysaa nuux ibraahim yaasiin waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan koonfur afrika 2012 haddaba haddii uuna maqlayo nuux ibraahim amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nasro nuux iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. xamdi ibraahim saciid oo joogta doolow waxay baafinaysaa faadimo ibraahim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka kenya sanadii 2009 haddaba haddii ayna maqlayso faadimo ibraahim amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xamdi ibraahim saciid
iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. ceeblo suleymaan maxamed oo joogto baardheer waxay baafinaysaa xaliimo suleymaan maxamed waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan Australia 2018 haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo suleymaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ceeblo suleymaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. saado warsame cigaal oo joogto doolo waxay baafinaysaa cismaan warsame cigaal waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka koonfur afrika sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo cismaan warsame cigaal amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey saado warsame cigaal iyadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere. baafinta ugu dambeysa maanta waxay naga soo gaartay fartuun mursal diini waxay baafinaysaa dadka kale ah xaawo mursal diini iyo axmed mursal diini waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Yemen 2010 haddaba haddii ayna maqlayaan xaawo iyo axmed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo fartuun mursal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere ama taleefanka lambarkiisu yahay 2526179298. baafintaasi ayaan idaacaddeenii duhurnimo ugu dambeysay waxaana dib hawada ugu kulmi doonaa 5 galabnimo hadduu allaha wado leh u ogolaado inta ka horeysane nabaadiino.